بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. ولا يا ولي waxaan dhex wareegaynaa oo iska dhex soconaa magaalada DC ee Washington. halkan hortayda hadda gurigan aad arkaysaan waa aqalka cad ee Mareykanka ama the White House soo taqaanaan. filladii ma aha Soomaalida filladii aad u yaqaanaan, halkan filladii ma ahan. halkan waxa weeyaan waa aqalka cad ee Mareykanka ama the White House. إلهي سبحانه وتعالى أود أو إنسان كسيء أوده هو والدنيا كجرة ميرها لقى معمولة أي كوكب تاي هالكن. إلهي أود ابن آدم كسيء عالم كشقية أوده هو وين قري لوجة تليه قريها أو علص وقري مهرتين كويلا وأنا قري أدنى وقع بصده. سؤال مركب واحد تهي أود أنت لك محيكو قارين أود أنت لك محيكو قارين مدد هل جفاء أو ميل ودقنو هل قبيلة مدد هل دل أي هل لغة أي هل مدب أي هل كلر أي هل دين وسيد نو كلا مسوا دد اسكت تجي أو كلا دول أو دوحة كينا مركي أفكار كلا دول لهلو مركي لهلو شعوب كلا دول لهلو مركي لهلو ربيتان مديسان لهلو أي أودة ست ماذا dalkan hadda aan dhex joogo ee Mareykanka ee hadda aan dhex marayo caasimadiisa iyo gurigiisii looga talilayay waxyaalaha adduunyada kaga duwanada waxa kamid ah ay ku tilmaameen ay yiraahdeen waxa dad markii hore markii halkan imariyeen u yimid xorriyad iyagoo raadinaya xorriyad hadii noqoto afkaarta aaminsan yihiin diimaha aaminsan yihiin ay halkan u yimaadeen xorriyadii markii inay ka dhabeeyaan iyagoo aan ku gaareen taas marka waxa ay keentay bacda juhdihiin ama dadaal badan ay sameeyeen kadib inuu ilaahay iyagana u rumeeyo awoodaas inay helaan dadka aan ka dhashay Soomaaliyeed waxaan ilaahay ka rajaynayaa maalmaha kamid ah inay awood lamida ay ku yeelan doonaan awoodan iyo awooda ka sii ballaaran dunida insha Allah ta'ala. laakiin waa markay dhaxdooda is ogolaadaan, laba waa markay ummadaha kale ee dunida ka jira ay ogolaadaan, waa markay ogolaadaan in wiilka Soomaaliga ah ee kalarkiisu nooc kala yahay ama tintiisu ay nooc kala tahay ama sankiisu uu nooc kala yahay, markay ogolaadaan inuu qof Soomaaliya oo muslim walaalkooda u yahay, markay ogolaadaan wiilka Yamaniga ah iyo wiilka mataqaana Filibiinka ah ee u soo ganacsi tagay wadankooda inuu nabad ugu dhex noolaado, markay ogolaadaan waa markay ogolaadaan in sida anagu halkan aan nabad ugu nool lahay in qof walba oo bini aadam oo dunida ka yimaada ama ha noqdo qof wax bartay ama qof ganacsi wata ha noqdo ama qof wax bartay ha noqdo ama qof ganacsi wada ha noqdo wadankii aynu ku noolaan jirnay ee geeska Afrika inuu nabad ugu noolaado. markaynu ogolaano dhaqaatiirta India ka timid, kuwa South Africa ka yimid, kuwa Sacuudiga ka yimid, ganacsada ka timid China, dadka markaan ogolaano in inta guriga ka dhisana ay deganaadaan ee nala noolaadaan, markaynu ogolaano inaga markaynu ogolaano wiilka ka yimid Mudug iyo wiilka ka yimid Jubbada iyo wiilka ka yimid Hiiraan iyo kan Nabab ka yimid iyo ka Baydhabo ka yimid inuu meeshu rabo xuriid ku dhaxmari karo oo aan loo tiigsayn qabiil ahaan iyo aan ahaan iyo in la dhacayn dhibaatay, markaynu ogolaano markaas ay inaga inoogu dhowdahay awood lamid inuu Ilaahay na siiyo. inta aynu taaganahay gobolkayga ninka ku yimaada waa looma ooyaan, gobolkayga ninka yimid waa looma ooyaan intaynu taaganahay oo gobolkan ayaga laan dheere ka intaynu taaganahay White House kana hor taaganahay awood u yeesho kala ma yeelan doono. afkaarteenu waan isbedeshaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.